Bismillahirrahmanirrahiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Dadka meel walba joogtiin caafimaad waaro. Waxaan rabaa inaan idinku soo dhaweeyo rugteena dawaruux. Waxaan rabaa maanta faahfaahin kooban inaan idinka siiyo rugteena dawaruux. Dawaruux waxaa waaye rugta ugu horeysay oo laga furo wadankeena oo markaas shaqadeeda ay tahay la talinta xanuunada nafsiga. Rugtaas anigaa fadhiisto anigoo doctor Saidil Caawil Cilmi. Takhasuskeyga oo yahay la talinta cilmi nafsiga iyo daaweynta xanuunada nafsiga. Waxaan shaqeynaya muddo 12 sano taas waa ka shaqeynaya wadanka dhexdiisa. Waxaan rabaa marka maanta inaan idin soo gudbiyo muddadaas 12 sano waxay ii sahashay ama ii fududeysay in aan fahmo dhibaatooyinka haysto dadkeena, dhibaatooyinka nafsiga ee dadkeena haysto dhinac walba ha kasoo gaaro ama dagaalaad ama bulsho ama trauma waxay rabtaa ahaato wadada ugu fudud ee ka caawin karo ama sida ugu fudud aan qofka u siin karo space oo ku hadlo anigoo markaas ku dabaqayo hadbo ama aysan iga maqnayn dhaqankeena iyo diinteena. 12 sano waxaa iisii dheeraa inaan ahay macalimad jaamacad ha ahaato medicineka ama qaybta dhaqaatiirta, qaybta public healthiga, midwiferyga, nursingka. Intaasaa macalinka soo ahay iyadana waxay ii fududeysay inaan wax badan ka ogaado caqabadaha soo waajihi kara ardayda iyo cabsiyooyinka ka dhex guuxayo gudahooda. Anigoo marka ku hadlayo khibradeyda iyo waxyaabihii aan soo arkay waxaa diyaariyey dhowr barnaamij ama xarunteena waxay qabataa dhowr barnaamij. Barnaamijyada aan qabano waxaa ugu horeeyo barnaamijkan hadal oo nafis iyo barnaamijyadan kale aan qabnay in aan ka ogaado qofka markaas ii imaada ee ka tabanaya xanuunada nafsiga, fitamiinada markaas jirkiisa ku yar ama mineralska kuwaasoo qofka aad ugu sii sababi karo inay sii liitaan xanuunadiisa nafsiga. Waxaa kaloo jiro xarunta dawaruux inay leedahay Somali Smile Program. Programkaasoo tababar lagu qabto. Hal tababar wuxuu ka hadlaa yani badanaa uga hadlaa xirfadaha nolosha inaan ku baro dadka. Tababarka kalena waxaa uga hadlaa shaqaas qaasa u qabtaa ama qof ahaan yani qofka inaan ku tababaro sidii oo kor ugu qaadi lahaa kalsoonidiisa gudaha iyo midda banaanka. Waxaan rajeynayaa inaa waxu niga fahamteen. Waa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.